maanta waxaan idin wadaa muuqaal cusub. Muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay daraasad la sameeyay dadka ugu burburan adduunka. Halkee ayay kaga jirtaa waddankeena amba waddanka Soomaaliya kaalmaha dadka burburan adduunka? In ka badan 1 milyan oo qof ayaa la nool cayilka ama miisaanka culus adduunka oo dhan, waana qiyaasta caalamiga ah ee lagu daabacay The Lancet Show. Baaritaankan waxaa lagu sheegay in ay ku jiraan ilaa 880 milyan oo qaangaar ah iyo 159 milyan oo caruur ah marka loo eego xogtii 2022 la sameeyay. Heerarka ugu sarreeya ayaa laga diiwaan geliyay Tonga, iyadoo 80% dadka waaweyn ay la nool yihiin cayilka saayidka ah. Qaar ka mid ah 109 waddan ee dunida ayaa ugu badan UK waxay ku jirtaa dalalka oo ay raggu gaarayaan darajada 50 ee ugu sarreysa ragga iyo 87 ee dhanka haweenka. Kooxo saynisyahano caalami ah ayaa sheegay in baahi degdeg ah loo qabo isbeddel weyn oo ku saabsan sida loola tacaalayo miisaanka badan ama buurnida. Cayilku wuxuu kordhin karaa khatarta ah in dadku ay la kulmaan xaalado caafimaad oo badan oo halis ah oo ay ku jiraan cudurrada wadnaha ku dhaca iyo nooca sonkorowga iyo nooca keena kansarrada qaarkood. Qiimeynta heerarka buurnida adduunka, boqolkiiba dadka lagu sifeeyay cayilka kadib kala duwanaanshaha da'da oo la tirakoobay. Cilmi-baarayaashu waxay heleen Mareykanka ayaa ku jira kaalinka 10aad ee ugu sarreysa dhinaca ragga iyo kaalinta 36aad ee ugu sarreysa dhinaca dumarka. Hindiya waxay ku jirtaa kaalinta 19aad ee ugu hooseeya dumarka iyo kaalinta 21aad ee ugu hooseysa dhanka ragga. Dalka Shiinaha ayaa kaalinta 11aad kaga jira dumarka ugu hooseeya, halka 52aad ay ugu jiraan dhanka ragga. Soomaaliya iyadana halkee ayay kaga jirtaa? Bal faalladaada iyo ra'yigaaga noogu soo gudbi qaybta comments-ka. Muuqaalkaana like saar oo subscribe dheh si aad u heshid muuqaalada ugu dambeeyaan halkan ku soo daabacno.